daawadayaal markale kula wanaagsan xubnayn waxaynu ku soo qaadanay falanqeyn aan ku sameynayno aragtida siyaasiyiinta ay ka dhibteen heshiiskii ama qodobadii laga soo saaray shirkii dhuusamareeb 3 haddii aynu ka horeyno labada madaxweyne ee Puntland iyo Jubbaland Saciid Cabdulaahi Deni Axmed Madoobe waxay saqdi dhexe xalay soo saareen war-saxaafadeed ay ku laaleen go'aanadii ka soo baxay shirka wada tashiga dhuusamareeb 3 oo laga soo saaray 17 qodob oo ku aadan nidaamka doorashada dalka. labada madaxweyne qodka telefoonka kaga aragtay xaaladaha Soomaaliya ka taagan gaar ahaan siyaasadda iyo ammaanka waxa ay sheegeen inay isku mowqif midaysan ka qaateen qodobadii bishan koowaad laga soo saaray shirkii dhuusamareeb 3 labada hogaamiye madaxweyne oo iyagu horey u qaadacay ka qaybgalka shirkaasi waxay kulankooda qodka telefoonka dib soo saaray war-saxaafadeed ay ku midaysan yihiin waxayna hoosta ka xariiqeen inay dhacday qalalaas siyaasi intii u dhexaysay labadii shir ee dhuusamareeb 2 iyo dhuusamareeb 3 kuwaasi ay ku sameeyeen inay tahay sababaha ay u diideen ka qaybgalka shirka dhuusamareeb 3 war-saxaafadeedka ay soo saareen waxay kaloo si wadajir ah ugu sheegeen inay markasta diyaar u yihiin dadaal kasta oo lagu dhanyahay oo lagu doonayo in lagu gaaro hirgelin doorashada sanadaha 2020 iyo inay doorashadu ku dhacdo xilligii loo qorsheeyey iyo in si wada ogol ah loogu heshiiyo hanaanka loo marayo qarsoominta farsamo iyo maamul ee doorashada. aynu eegno hogaamiyaha xisbiga siyaasadda ee SAN Party oo hore u ahaa madaxweynihii dowlad goboleedka Galmudug Cabdikariim Xuseen Guuleed waxa uu isagana hadal ka soo saaray qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebooka wuxuuna soo dhaweeyay qodobadii laga soo saaray shirkii dhuusamareeb 3. Cabdikariim Xuseen Guuleed waxa kale uu tilmaamay inaan indhaha laga qabsan karin maqnaanshaha dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland wuxuuna hoos ka xariiqay inay muhiim u yihiin wadajirka geedi socodka doorashooyinka dalka. waxaa kale oo ku baaqay in la raadiyo sidii labadaas dowlad goboleed ee Puntland iyo Jubbaland loogu qancin lahaa hanaanka suurtagelin kara dib u eegis lagu sameeyo qodobada heshiiska dhuusamareeb 3 si uu heshiiskaas u noqdo mid loo dhan yahay oo taabagal noqda. dhinaca kale Cabdikariim Xuseen Guuleed oo hore u soo madaxweynihii dowlad goboleedka Galmudug waxaa kale oo qoraalkiisa uu soo dhigay Facebook ku sheegay in heshiiska dhuusamareeb 3 ku jiraan qodobo badan oo u baahan dib u habeyn iyo in tafaasiil dheeri laga bixiyo sida maamulka doorashooyinka iyo qaabka xulista ergooyinka. waxaa intaas ku daray inay maqan tahay kaalinta xisbiyada siyaasadda oo iyagu kuwii ku tartami lahaa doorashada loo adeegsanayo heshiiskan. Cabdikariim Xuseen Guuleed waxa uu ugu dambeyntii sheegay amaba uu tilmaamay in ay xoojinayaan muhiimadda ay leedahay in si dhaqso heshiiska uu u helo midnimo siyaasadeed lana siiyo mudnaan gaar ah dadka aan looga maarmin hirgelinta doorasho isla ogol yahay loona dhan yahay si uusan waqti kale ugu khasaarin dalka iyo dadka iyo in laga fogaado in dana gaar ah loo adeegsado heshiiskani. sidoo kale gudoomiyihii hore gobolka Banaadir ahna hogaamiyaha xisbiga awoodda shacabka Taabid Cabdi Maxamed ayaa isaguna wuxuu qoraal soo dhigay bartiisa Facebooka uu kaga hadlay arinta shirka dhuusamareeb qodobada lagu gaaray waxaana uu sheegay in la muujiyo tanaasul si hubinta looga dhigo qabsoomidda doorashada. Taabid Cabdi Maxamed oo hore u soo noqday gudoomiyaha gobolka Banaadir duqii Muqdisho waxa uu qoraalkiisa ku aadan aragtidiisa ku soo bandhigay bartiisa Facebooka isagoo soo bandhigay 4 qodob oo ku aadan qabsoomidda doorashada arrimaha Puntland Jubbaland 13 senatar kuraasta gobolka Banaadir ee aqalka sare iyo inay guddiga madax bannaan doorashada qaranka maamulaan doorashada balse loo baahan yahay talo loo dhan yahay. mii hore gobolka Banaadir waxa uu aragtidiisa uu ku soo qortay bartiisa Facebooka uu ku sheegay ama uu ku baaqay in arrimaha socda sidoo dhaqso badan loo dhameystiro si heshiiskaas hirgelintiisu bilowdo. waa tan koowaad tirada aqalka sare ee sanadaha 2020 in lagu cadeeyo nuqulka heshiiska inuu noqon doono 67 senatar inta aan loo horgeynin golayaasha maadaama matalaadda 13 senatar ee gobolka Banaadir si sharci ah ay u yeelatay. qodobka labaad in Puntland iyo Jubbaland labadaba fursad la siiyo wixii talo ah oo ay ku biirin lahaayeen heshiiska doorashada dhuusamareeb 3. qodobka saddexaad maamulka doorashada ee sanadaha 2020 haddii ay maamulayaan guddiga madax bannaan doorashooyinka qaranka waa arrin wanaagsan balse u baahan talo loo dhan yahay si aan loo siyaasadeynin go'aanada iyo qorshooyinkooda. qodobka afraad ee uu Taabid soo bandhigay waxa uu ku sheegay in heshiiska doorashada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliyeed wadajir u tarxaan bixiyaan gaar ahaan meelaha u baahan kabidda una ansixiyaan. sidoo kale
cabdiraxmaan cabdi shukuur warsame oo hogaamiya xisbiga wadajir ayaa isagana waxa uu qoraal soo dhigay bartiisa facebooka taasi oo ku muujiyey arrintada xisbigiisa ay qabsoomidda doorasho loo wada dhanyahay iyo turxaan bixinta qodobadii laga soo saaray shirka dhuusamareeb 3 ee maalintii shalay jimcaha ahayd lasoo gabagabeeyey. qoraalka waxa uu ku sheegay in loo baahan yahay inay saamilada siyaasadda ka wada tashadaan doorasho xilligeeda dhaco lana wada ogol yahay. cabdiraxmaan cabdishakuur waa siyaasi mucaarad ah horeyna xil wasiir usoo qabtay. waxa uu qoraalkiisa ku sheegay inay labada dowlad goboleed ee puntland jubbaland iyo saamilayda siyaasadda looga maarmin fulinta iyo meelmarinta heshiiska dhuusamareeb 3. cabdiraxmaan cabdishakuur waxa uu qoraalkiisa ku soo bandhigay 3 qodob oo uu sheegay inay laga maarmaan tahay in la qaado tallaabooyinkaasi. waa qodob koowaad in dowlad goboleedyada iyo saamilayda kale aan qaybta ka ahayn heshiiska dhuusamareeb 3 wadahadal lala galo si heshiiskaas u noqdo mid lagu wada qanco. waxaa xusid mudan in heshiis siyaasadeedkaasi uusan u baahnayn in laga ansixiyo golo sharci dejin. qodobka labaad si looga hortago muddo kororsi iyo dib u dhac ku yimaada doorashada xilligeeda qabsoonta heshiiskan uu noqdo mid la fulin karo. waxa uu soo jeediyey in la qeexo oday dhaqameedka, la cadeeyo xubnaha bulshada rayidka, lana xadido tirada xubnaha guddiga xuleeya ergada iyo habraaca loo mariyo soo xulista xubnaha. waxaa kaloo u baahan in la cadeeyo halbeega la isku raacinayo kuraasta, qaybna 3 looga dhigay qayb kalena 5 looga dhigay iyo habka tartamayaasha u kula guuleysanayaan. qodobka kale maadaama lagu heshiiyey in la dhiso 275 guddi oo soo xulay ergooyinka, haddaba si ay u fududaato xulista ergooyinka waa in la yareeyaa tirada ergada doorashada laga dhigay 101 iyadoo la eegayo tabarta dhaqaale, awoodda amni, lagana hortegayo kushubasho iyo qallaasi. waa in dowlad goboleedyo walba loo asteeyo 2 goob codbixin si ay u fududaato maareynta iyo meelmarinta doorashada. qodob kale oo ka mid a qodobada uu soo bandhigay siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur waxa ay tahay oo qodobkii 3aad ahaa si loo saaro tuun laga qabo in madaxweynuhu uusan daacadkeen doorasho xilligeeda ku dhacdo waa inuu magacaabo ra-iisul wasaare iyo xukuumad lagu aamini karo dhamaystirka iyo dhaqangelinta heshiiska. beesha caalamkana ay heegan u ahaato dabagalka iyo damaanadqaadkii ay ballan qaaday. waxa uu qoraalkiis kusoo gabagabay waxaan u mahadcelinayaa shacbiga iyo hogaanka dowlad goboleedka galmudug oo martigeliyay shirka dhuusamareeb 1, 2 iyo 3. waxa uu sidoo kale u mahadceliyay beesha caalamka oo taageero joogta la garab taagan shacabka Soomaaliyeed. haddaba haddii aan dib u jaleecno qodobadii ka soo baxay shirkii dhuusamareeb 3 oo ka koobnaa 17 qodob waxay kala hayeen in qaabka doorashada ee 2020 ay noqoto mid deegaan doorasho ah, in guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka oo kaashanaya maamulada dowlad goboleedyada ay fududeeyaan dhisida guddi xulis oo loo dhan yahay oo ka kala imaanaya odayaasha iyo bulshada rayidka ee ka soo jeeda beesha wadaagta kursiga, in ergada kursi kasta noqoto 301 oo ka imaanaysa beesha kursiga wadaagta, in dowlad goboleed kasta loo asteeyo ugu yaraan 4 deegaan doorasho oo ay ka dhacdo doorashada. qodobka 5aad in codbixiyaasha 3 iyo 4 kursi ee hal goob doorasho wadayaala la isku dhafo kadibna si wada jira ay uga codayaan dhammaan musharaxiinta xisbiyada ee ku tartamaya kuraastaasi. qodobka 6aad in doorashadu ka wada dhacdo dalka oo dhan hal maalin oo isku mid ah. qodobka 7aad guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka waxay kuraasta lagu asteeyay deegaan doorashada aan amniga ahayn u wareeji karaan deegaan doorasho kale oo amni ah. qodobka 8aad in kuraasta Soomaaliland lagu doorto qaab doorasho dadban. qodobka 9aad in qorsheynta iyo fulinta doorashada looga dambeeyo guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka iyagoo kaashanaya maamulka dowlad goboleedyada iyo bulshada rayidka. qodobka 10aad in doorashada lagu gulo hanaanka xisbiyada badan. 11 in baarlamaanka dowlad goboleedyada ay soo doortaan aqalka sare. qodobka 12aad in heshiiska loo gudbiyo golaha shacbiga si uu sharci u noqdo. qodobka 13aad si doorashada waqtigeedu dhacdo waxaa la go'aamiyey in golaha ama guddiga madax bannaan doorashooyinka qaranka ay dirdirgeliyaan hirgelinta doorashada. qodobka 14aad madaxda shirka waxaa ka go'an inay si wadaan dadaalka xal u helidda tabashooyinka ku aaddan arrimaha doorashooyinka 2020 iyo 2021 ee ay qabaan labada dowlad goboleed ee shirka maqnaa. waxaana rajaynaynaa inay nagula soo biiraan wixii hool ah oo dhiman. qodobka 15aad in la ilaaliyo
boqolkiiba 30 saamiga haweenka qodobka 16aad wuxuu shirku mahadcelinayay iyo bogaadin ujeedinaya madaxweynaha iyo shacabka galmudug soo dhaweynta iyo martigelinta shirka qodobka ugu dambeeyay 17aad sidoo kale shirku wuxuu mahadcelinayay beesha caalamka oo mar walba dadka Soomaaliyeed la garab taagan taageero dhinac walba ah haddaba danjiraha dalka Mareykanka jooga Soomaaliya Donald Yamamoto waxa uu shalay galab oo garoonka aadan cadde kula kulmay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed kuwaasi oo shalay ka soo laabtay safarkii ay ku tageen ama shirka ay ka soo qayb galeen magaalada Dhuusamareeb kulanka Yamamoto uu la yeeshay madaxweynayaasha dowlad goboleedka oo soo gaaray ilaa xalay fiidkii waxa uu looga hadlay xaaladii ugu dambeysay Soomaaliya gaar ahaan heshiiskii lagu gaaray Dhuusamareeb iyo arrimaha doorashada safiirka Mareykanka waxa uu ka dalbaday dowladda madaxweyne Farmaajo inuu casuumo labada madaxweyne goboleed ee shirka qaadacay kadibna Mareykanka uu gacan ka geysto inay aqbalaan casuumaadaasi warar ay waxa sheegayeen Mareykanka madaxweynuhu Farmaajo uu sheegay inaan sidan doorashada lagu aadi karin maadaama Puntland iyo Jubbaland ay yihiin kuwa ka maqan sidoo kale loo baahan yahay in xisbiyada mucaaradka ay aqbalaan heshiiskaasi haddaba shirkaasi oo danjiraha Mareykanka u jooga Soomaaliya uu yeeshay madaxweyne Farmaajo madaxweynaha kale waxa kaloo la soo sheegay in la isku afgartay in la qabto shirweyne kale kaasi oo lagu tarxan bixinayo qaladaadkii dhacay isla markaana dib loogu soo celinayo kulankaasi labada dowlad goboleed ee ka maqnaa istabaatay kulanka Donald Yamamoto madaxweyne Farmaajo iyo madaxweynayaasha Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed ay ku yeesheen xalayto garoonka aadan cadde laguma go'aaminin xilliga la qabanayo shirkaas kale ee la doonayo in tabashada ay qabaan madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Jubbaland iyo Puntland lagu qanciyo si loo turxan bixiyo qodobadii 17 ahaa ee lagu soo gaaray shirkii Dhuusamareeb 3 daawadayaal xubintii ugu dambeysay waxaynu ku soo qaadanaynaa yaa loo magacaabi doonaa ra'iisul wasaaraha cusub ee dalka madaxweyne Farmaajo waxaa lagu wadaa inuu saacadaha soo socdo ku dhawaaqo ra'iisul wasaaraha cusub ee xukuumadda federaalka xilka siyaad doona tan iyo laga gaaro bishii Febraayo ee sanadka soo socda ilaa wareedi ku dhow madaxtooyada Villa Soomaaliya ayaa waxay sheegayaan inuu madaxweynuhu magacaabi doono ra'iisul wasaaraha cusub labada maalmood ee soo socda haddii uusan ra'yigiisa wax iska bedelin hadalaynta ugu badan ee ra'iisul wasaaraha la magacaabi doono ayaa aad iyo aad loo hadalhayaa waxaa la sheegayaa in magacyo badan ay dul saaran yihiin miiska madaxweyne Farmaajo kuwaasi uu ka xulan doono shakhsiga uu magacaabi doono ra'iisul wasaaraha dalka oo bedeli doona ra'iisul wasaarihii xilka laga qaaday ee kalsoonida uu baarlamaanka kula noqday Xasan Cali Kheyre wareedyo loo qaatayna ayaa waxay sheegeen in xilka ra'iisul wasaaraha loo magacaabi doono Professor Cali Maxamed Geedi oo hore xilkaas u soo qabtay Professor Geedi oo haatan hogaamiye xisbi siyaasadeedka la magacaabay xisbiga wadaniga Soomaaliyeed waa siyaasi khibrad u leh oo hogaamin kara xukuumad maadaama uu hore ra'iisul wasaare uga soo noqday dowladii ku meel gaarka ee madaxweynuhu ka ahaa Allah u naxariistay Cabdullaahi Yuusuf Axmed Geedi wuxuu xilkaasi hayay muddadii u dhaxaysay bishii November 3 ee sanadkii 2004 ilaa bishii Oktoobar 29 ee sanadkii 2007 ra'iisul wasaare Geedi waxaa la hadlayay inuu madaxweyne Farmaajo leeyahay xiriir aad u dhow isla markaana waxaa arrintaas laga dareemay hadal uu ku amaanay madaxweyne Farmaajo kadib markii uu golaha shacabka ka codsaday madaxweynaha in la ansixiyo maqaamka Muqdisho qoraal uu ra'iisul wasaare Geedi soo dhigay bartiisa Facebook bishii June 28 sanadkan waxa uu ku sheegay inuu madaxweyne Farmaajo dhigay sumcad aysan dhigin madaxweynayaashii xilka ugu horeeyay maadaama uu madaxweyne Farmaajo golaha shacbiga ee baarlamaanka federaalka uu ku codsaday inay isaga ku xishmeeyaan ansixinta maqaamka magaalada Muqdisho